maantu ay tahay 15 May waxa guud ahaan Somaliland iyo caalamka laga xusay sanad guuradii 27aad ee ka soo wareegtay markii Somaliland ay xorriyadeeda dib loo soo noqotay sanadii 1991 May gaar ahaan dadweynaha ku dhaqan caasimadda Hargeysa ee Somaliland ayaa saaka u dareeray xuska 18 May dhalinyaro haween caruur dad waaweyn ayaa isugu soo baxay wadada bartamaha ee caasimadda Hargeysa waxaanay siteen astaanta calanka Somaliland oo ay siyaabo kala duwan ugu soo labisteen isla markaasina waxa ka muuqday dareen ay ku weyneynayaan xuska maalintani dadweynuhu waxa ay si dareen leh u daawanayeen gaardiska ciidamada kala duwan ee dalka ardayda jaamacadaha dugsiyada sare ururo iskaashatooyin bahda isboortiga iyo laamaha dawladda ee kala duwan oo wadada marayay kuwaasi oo ku labisnaa calanka Somaliland isla markaasina sameynayay ficilo kala duwan oo ay ugu tala galeen xuska maalintani 18 May intaasi kadib dadweynaha ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan xuska maalintani iyo sida ay u arkaan dareenkaygu aad iyo aad buu u sareeyaa oo xamaasad iyo ulay saaka shantii aroornimo ayaa waxaan u kacay si aan uga qayb qaadan lahaa ama aan ugu dabaaldegi lahaa munaasabadda 18 May gacantaana sidii madaxweynuhu sheegay waxa weeyaan dalkaynu ku difaacnaa gacantaana waynu ku dabaaldegnaa maanta waa maalin aad iyo aad inoogu weyn waxaynu u baahannahay inaynu muujino dareenkeena inaynu si wadaniyada u muujino inaynu si qarannimo u muujino inaynu si wadaniyada aynu markaas u cabirno dareenkeena inagoo wada jirna inagoo mid ah oo hal kaliya ah aad iyo aad baan u hambalyeynaya ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland meel kasta ay joogaanba ay hayday anigoo ardayda ah haddana saaka maxay hayday shantii barkii subaxna bartay soo istaagay saan ugu la qayb qaadan lahaa dareenkayga farxadeed xalay aan seexan in kasta waali naga dambeeyay haddana anagu adkaatay inaan soo baxno haddana aan soo baxno maxay hayday Somaliland waxaan waxa leeyahay qabuul bad gaadheen nabadgelyo haysan ilaahay inoo siyaado aad bay u fiican tahay ma sha Allah soo maray wadooyinka iyo sida ciidanku u maray sida cid walba u martay ma sha Allah nabadgelyada u dhacday hooyo aad bay wanaagsan tahay alxamdulillah ma sha Allah ilaahay hay noo qadba nabad iyo wanaaga hooyo maanta dareenkayga aad iyo aad ma soo koobi karo waayo maanta waxay ahayd maalinta 18 May ay xorriyadda la soo noqotay Jamhuuriyadda Somaliland maanta aan ka qayb galnay madaxtooyada xafladii lagu qabtay oo madaxweynuhu si fiican uga khudbadeeyay wallahi dareenkayga ma soo koobi karo aad iyo aad baan faraxsanahay maanta aad iyo aad gool baa leeyahay Somaliland gool dareenkayga mid la soo koobi karo maaha aad baan faraxsanahay ma sha Allah dhammaan ummadda reer Somaliland waxa leeyahay 18 May waxa rijigani waxa naga qorayna waa qadiyad laabteeda ku jirtoon Saciid Aadan Jaamac telefishinka on cable magaalada Hargeysa